Toddobaadyadii u dambeeyay waxaa ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Gadeey ee Koonfurta Soomaaliya isku dhacyo dhex maray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Kenya isku dhacaas oo salka ku hayay kadib falal gurracan oo ay ka mid ahayd duqeymo lagu laayay dad iyo xoolo in dad shacab laga kaxaystay deegaano hoostaga degmada Ceelwaaq ee gobolkaasi Gadow. xilli dhacdooyinkan ay yihiin weli kuwa taagan ayaa wargeyska Global Firepower uu soo bandhigay awoodaha militariga wadamada caalamka si gaar ahna isbarbardhig ugu sameeyay wadamada Soomaaliya iyo Kenya. Soomaaliya ayaa kaalinta 136 ka soo gashay liiska wadamada oo ka kooban 138 dal. Sida lagu xusay warbixinta uu diyaariyay wargeyska Global Firepower, tirada shacabka Soomaaliya qiyaas ahaan waa 11 milyan 258 iyo 29 ruux. Tirada dadka ku biiri kara ciidamada waxaa lagu qiyaasay 2 milyan 702,167 ruux oo u dhigma 24% oo ka mid ah shacabka guud. sanad kasta tirada dadka ay da'doodu soo gaarto heer ciidan ay ku biiraan ayaa lagu qiyaasay 122,598 qof. tirada ciidanka militariga Soomaaliya ee hadda shaqeeya waa qiyaastii 20,000 oo askari sida wargeyska Global Firepower uu daabacay. Kenya waxay kaalinta 84 ka soo gashay liiska lagu qiimeeyay awoodaha militari wadamada oo ka kooban 138 dal. tirada guud ee shacabka Kenya waxay gaarayaan 48 milyan. tirada dadka ku biiri kara ciidamada waxaa lagu qiyaasay 19,600,998 ruux oo u dhigma 40% oo shacabka guud ah. sanad kasta tirada dadka ay da'dooda soo gaarta heerka ciidanka ay ku biiri karaan ayaa lagu qiyaasay 848,370 ruux. tirada ciidanka militariga Kenya ee hadda shaqeeya waa qiyaastii 24,150 askari sida lagu xusay wargeyska Global Firepower. inkastoo wargeyska isbarbardhig badan uu ku sameeyay awoodaha militari ee wadamada Geeska Afrika ee Soomaaliya iyo Kenya, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa guulo ka gaaray dagaalo sanadkan ay Kenya kula galeen xuduudka gobolka Gadow, waxaana u dambeeyay toddobaadkan gudihiisa dagaal ciidanka gorgor ay la galeen ciidamo Kenyaan ah oo xadgudub ku sameeyay shacab Soomaaliyeed oo dibadbax ka dhigayay balad xaawo. Filsan Duceysane, Shabeelle TV, Muqdisho.